iyadoo ay dhawaan ahayd markii la baneeyay isla markaasina laga kiciyay dadweynaha deganaa agagaarka magaalada Burco ay maanta mudaaraad salmiye ka hordhigeen dadweynahaasi xarunta maamulka gobolka Togdheer waxaana dadweynahaas oo saxaafadda la hadlayay sheegeen in laga kiciyay goobihii ay deganaayeen isla markaasina haba yaraatay wax dhul ah la siinin dadweynahaasi waxay dhaliil xooggan u soo jeediyeen wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi Kaaso ee ku dhaliileen inuu isagu ka kiciyay goobihii ay deganaayeen isla markaasina muddo ku siman 2 sano ahna inaanu siinin haba yaraatay wax dhul bedela waana kuwan dadweynaha soo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale dadkan waa dadkii laga raray madaarka sidii halka looga raray bacadkay taagnaayeen waxay doonayaan hooy ay degaan ma haystaan intaas oo qof oo arkaysaan qof hal mitir la kula Burco male waxay doonayaan dawladda hoose waa u tageen waxba uma qaban qoladii dhulka waa u tageen waxba uma qaban wasiirkii duulista oo ka raray meesha waa u tageen waxba uma qaban saaka waxaanu qabanaynaa barasaabkiina waa waaye ma joogo barasaabku xogeenkii baa jooga wuxuu leeyahay anna waxba idiin ma hayo waxaanu aragnaa dadka in la leeyahay marka mawaadiin ma tiino Burco ma tihidin waxaanu u sheegaynaa mas'uuliyiinta dawladda xil kastaba ha hayee waxaanu u sheegaynaa dadka halka tuban ee maatada waa dadkii laga raray garoonka diyaaradda sidii loo raray qof waliba halkii lagu daadiyay ayuu daadsan yahay intaana way qaylinayeen wax allaale wax loo qabtayna ma jirto wax la siiyeyna ma jirto qof waliba halkii buu ka ooyayaa waa dhibane waxaanu leenahay dawladda iyo wasiirada xildhibaanada waxaanu leenahay dadka haddii aatiin dad mas'uuliyiina dadka muwaadiniinta ee dalkoodii joogay ee aan mitirna ku lahayn intii ay ka deganaayeen laga qaaday waxaanu leenahay waxa loo qabto waxa la siiyo si ay yihiin waxa loogu qabto waxa weeye waan raacinaya anigu labadaas sanadood ee dhulkaana laga raray waxa laala wax loo qabtay maatada ma jirto iyo dadka toona wasiir baa joogay xogeeyaa joogay barasaab baa joogay cid kastaba waa joogtay dadkaasi waxay ku guureen sharaf iyagoon cidna caayin cidna habaarin markii la yiri guura halkay badida ku hayeen way ka guureen waana kuwaasoo waa maatada dee maanta halka tuban waxa laala wax loo qabtayna ma jirto Soomaaliland labadaas sanadoodna sidaa yaa dadka loo meermeerinay oo loo lahaa waxba la idin hayaa imikana waa taa wali sidaas ay u dacwoonayaan dadkaas kawdhi marka waxa la rabaa dadka maatada in xil la iska saaro wax weeyaan la dejiyo dhul lama waayin wallahi hay'adaha jooga waa loo iibin karaa Soomaaliland waxa weeye dadka in xil la iska saaro yaanu leenahay oo loo dhiso asiga tabaatay markii ugu horeysay ee mudaaraad sidan oo kale ay dadweynahaasi dhigaan isla markaasna ay ku cabirayaan dareenkooda waa Khalid Bakeele wararka magaalada Burco.